132 milyan ayaa heli karin jawigan quruxda badan ee habeen kasta helayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimada Soomaaliya Muqdisho. xeebtan leedo ee quruxda badan ayaa habeen kasta ku caweeyaan, laakiinse habeenada iskuma jiraan. habeenka ay soo galayso jimcaha ayaa ugu shidan, habeenkaasna waa la buuxaa. haddii ay xeebta xataa xiran tahay oo baddu ay kacsan tahayna, albaabka ayaa sidaas loo dhooban yahay oo sawiro iyo sidoo kale jawiga ayaa la sugayaa in badda loo fasaxo oo baddu ay tagto goobteedii ilaa ay ka tagto. dhalinyaradu way sugaan waqtiga rabto ha ahaatee. markii badda loo furana albaabkeeda ayay waxay ku sameeyaan activity inaba caadi ahayn. dhalinyarada Soomaaliyeedna goobtaas imaanaya waxay u kala qaybsamaan 2 qayb waa ganacsato goobta imaanayso, shaax gadayso, cunno yariis gadayso, sidoo kale qalab goobta soo dhiganayso, kuwaasoo muuqaalo dadku ay iskaga duubayaan. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaamirooyinkooda wato oo sawir qaadayo si hadhowtina ayagana wax uga helaan dhaqaale dadka ay ka qaadayaan sawirada. sidoo kale goobo qurux badan oo sidoo kale la farshaxameeyay ay arkaysaa, sida goobtan oo kale loof ayaa lagu sharaxay dhulka, sidoo kalena ubaxay ayaa meel lagu sharaxay si dadka sawir ay u galaan. sidoo kalena caalankeena quruxda badan ee Cawaale ayaa sidoo kale goobta aad ka helaysaa, waad sawir ku galaysaa, muuqaalo ku galaysaa, xeebtaada ku raaxayso, jawigaana ku qaado, dhulkaaga adoo joogtid yaa ka qurux badan. dhalinyarada Soomaaliyeedna amniga dalka ayaga ayaa sidoo kale horseed u ah, sida ay ugu hoggaansameen, iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka ah ayagana sida weyn u baarayo dhalinyarada imaanayso goobtaas si amni ah u imaanayso, sidoo kalena hadhowtina si amni ah u laabanayso oo guryahooda ku tagayso. ayaga ay ku seexdaan, ayaga ay ku degaan. dalka Soomaaliya qaasatan caasimadeena maanta la joogo amnigeeda inaba caadi maaha. ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu u siyaadiyo dalkeenana kulli oo wada gaarsiiyo. Soomaaliya ha noolaato,